madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed haddana ah hogaamiyaha madasha samata bixinta ayaa muddooyinkii dambe waxa uu sare u qaaday tirada ciidanka ilaalada gaarka u ah kadib tallaabo ay qaada filla Soomaaliya oo u muuqanaysa mid lagu beegsanayo musharaxiinta mucaaradka wararkii ugu dambeeyay ee kordhinta ciidanka militariga ah ee sida qaaska u waardiyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale cabsi ka taagan agagaarka garoonka ee Laboorka ee Muqdisho ayaan kula wadaagayaa ee daawada soo dhawaad muuqaalkan leeg noo saar la wadaag asxaabtada qaybta faaladana wixii aragtiya ay noogu reeb xogo aan helayni isla markaana aan baaritaan ku wadnay labadii maalin ee tagta ayaa muujinaya in Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaamiyaha madasha samata bixinta horeyna u soo noqday madaxweynaha dawladda ku-meel gaarka ah ee dalka uu bariyihii dambe kordhinaya ciidanka ilaalada khaaska u ah kuwaasi oo hadda laga dareemayo in loo badiyay kadib cabsi xoogan oo maalmihii taga ka taagneed garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo aaga ka agdhow guriga uu degan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed maalintii uu shirka jaraa'id qabtay oo ku beegneed maalinka Sabtiga ah ayaa lagu arkay meel aan sidaas ugu fogeyn magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Jazeera ciidan iyo gaadiid badan oo galbinaya Sheekh Shariif oo halkaas ku qabanaya shir jaraa'id waxaana ciidankiisa lagu qiyaasay inay sare u dhaafayaan ilaa iyo 4 cabdibile kuwaasi oo ay saaran yihiin ciidamada gaarka ah ee militariga Soomaaliya oo isaga ammaankiisa qaabilsan arintan ayaa timid kadib markii hay'adda NISA iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo tiro badan soo dhigeen aaga garoonka diyaaradaha sidoo kale hotelka Jazeera oo ay ku shirayeen madasha samata bixinta iyo sidoo kaleba meel aan wax badan ka fogeyn guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyadoo oo tan iyo xilligaasi ay soo baxayeen cabsi aad u xoogan oo ku wajahan hogaamiyaha madasha samata bixinta iyo sidoo kaleba qaar ka tirsan madasha samata bixinta oo laftirkooda ka agdhow aaga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ciidan qaas ah oo ku libisan dharka tuutaha ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu gudaha ula galay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho sidoo kale dad ka agdhow goobta ayaa tilmaamay in gaadiid dagaal oo ilaa 4 cabdibile gaaraya lagu waardiyay Shariif Sheekh Axmed oo markii hore loogu bartay in magaalada Muqdisho uu ku joogo ciidan ku libisan dhar cad isla markaana dabcan aan wadan dharka militariga Soomaaliya iyo sidoo kaleba laba gaadiid oo ah nooca cabdibilaha oo lagu waardiyin jiray Shariif Sheekh Axmed talaabadan ayaa sare u sii kacday kadib markii ay soo baxday in agagaarka garoonka diyaaradaha iyo guriyaha ay degan yihiin madasha mucaaradka la soo buuxdhaafiyo ciidamo dhar cad ah iyo kuwa kale oo isugu jira ciidanka tooska ah ee sirdoonka qaranka NISA ayadoo taasi ay keentay cabsi xoogan oo soo wajahday madasha samata bixinta hay'adda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo lagu tiriyo ragga ugu saameynta badan isla markaana hubka iyo gaadiidka dagaal iyo ciidan dagaalama magaalada Muqdisho ay u joogaan ayaa sare u qaaday ciidanka waardiyeya kuwaas oo hadda lagu arkayo iyaga oo ku labisan dareeska militariga Soomaaliya iyo gaadiid kale oo ka badan kuwii hore loogu arki jiray waxaana tani ay u muuqanaysaa mid uu sare ugu qaadayo dowladkiisa sidoo kalena awoodaha lagu tilmaamay ay qayb ka tahay in uu sare u qaado militariga hadda hogaamiya sidoo kalena awoodaha lagu tuhmayo uu banaanka keeno si kastaba ha noqotee hogaamiyaha madasha mucaaradka horeyna u soo noqday madaxweynihii dawladda ku-meel gaarka ahayd ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa muddooyinkii dambe wajahayay dabcan eedeemo kaga imaanaya rag ka tirsan xukuumadda talada haysa kuwaas oo qayb ay ka yihiin wasiirka difaaca Soomaaliya iyo rag kale oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la shaqeeya waxaase muuqanaysa in hogaamiyihii dawladda ku-meel gaarka ahayd Soomaaliya ka saaray doorasho wadar ogolaana qabtay iyadoo oo dalka intan ka liita hadda uu diyaarinayo ciidamo tiro badan oo isagu ammaankiisa suga iyo sidoo kale diyaar garowga guluf loo badinayo inuu yahay midkii badbaado qaran oo kale oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kursiga uu ku fadhiistay oo haddii muddo kordhin uu sameeyo laga yaabo inay ku dhawaaqaan madasha mucaaradka shirkii jaraa'id ee toddobaadkan uu qabtayna sidoo kale waxa uu ku muujiyay dareenka ay qabaan mucaaradka kadib markii uu sheegay in wixii laga diiday madaxweyne Farmaajo aysan jirin cid kale oo laga yeeli doono oo wali mabda'iyan uu halkaas taagan yahay haddaba daawade sidee ayay kula tahay sare u qaadista ciidanka ilaalada u ah hogaamiyaha madasha mucaaradka ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed qaybta faalada wixii aragtiya inoogu reeb muuqaalkana like mustaasi share garay haddii ay tahay markii ugu horeyso beedkeenu ku soo gaaro halkan rukumo si aad u hesho wararka Soomaaliya mahadsanid madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro waxa uu soo saaray hadal u muuqday hanjabaad oo u jeedinayo dhismaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari
waxa uu shaaca ka qaaday inay qaadi doonto Somalilan tallaabooyin degdeg ah oo ay ku xaqiijinayso amniga deegaanadeeda. Sool iyo Sanaag waxa uu ku tilmaamay inay Somalilan ka tirsan tahay xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fariintan Cabdiraxmaan Cirro uu jeediyey ayaan doonayaa inaan muuqaalkan idinkaga dabageeyo. Soo dhawaada saaxiibayaal, haddii aad nagu cusubtiinna nagu soo bir oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, aragtidaadana qaybta faallada ama commentiga kaga soo dhiiba. Hagaagkan ku bilaabo. madaxweynaha maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Cirro oo maanta ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa isla markaana ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay heerka koobaad ee waxbarashada jaamacadda. Munaasabad loo dhigayay waxa uu ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan deegaanada maamulka Somalilan iyo dhismaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari oo markan heer gabagaba ah maraya, maadaama maalintii shalay ahayd loo dhaariyey xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi. dhowaanna ay dooran doonaan guddoon ayna xigi doonto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari. Somaliland oo u muuqatay in ay ka quusatay dib u soo celinta deegaanadaasi si gacanteeda mar kale ay ugu soo laabtaan, waxa ay ka gaabsadeen gebi ahaanba ka hadlidda dhaqdhaqaaqyada arrintan ku qotoma ee dhismaha dowlad goboleedkan. waxaase Cabdiraxmaan Cirro oo markii ugu horeysay ka hadlay dhismaha dowlad goboleedka waqooyi bari uu sheegay in Somaliland ay qaadi doonto tallaabooyin uu sheegay inay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada Somaliland, isla markaana ay qaadi doonaan waqtiga ku habboon. sida uu hadalka u dhigay, waxay soo muuqataa in uu qarinayo abaabul xooggan oo ka socda deegaanada Somaliland oo lagu doonayo in lagu weeraro deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari ee Soomaaliya sida Sool, Sanaag iyo Cayn, goobaha ay kaga sugan yihiin ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari. Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay in goboladan aan hadda idin qeexay ee Sool, Sanaag iyo Cayn waxa ka soconaya ay yihiin kuwo riya maalmeed ah, sida uu hadalka u dhigay. caasimada dowlad goboleedkanna ee Laascaanood waxa uu sheegay in Muqdisho ay kaga dhow yihiin Hargeysa, isku danna ay yihiin dadka halkaas ku dhaqan. Sool, Sanaag iyo Cayn ayuu sheegay in Somaliland ay ka tirsan tahay. fariintan hanjabaada ah ee ka soo baxday Cabdiraxmaan Cirro, madaxweynaha maamulka Somaliland, si weyn ayaa baraha bulshada loogu faaqidayaa, iyada oo xubno ka tirsan dowlad goboleedkan Soomaaliyeed ee waqooyi bari ay ka falceliyeen, waxayna ku tilmaameen tallaabadan in Cabdiraxmaan Cirro uu bannaanka keenayo colaad mar kale deegaanadaasi dib uga soo ifbaxdo, waxayna sheegeen in difaaca ay u diyaar garoobeen. Firdhiye oo ah hogaamiyaha dowlad goboleedkan ee sida ku meel gaarka u daadihinaya, waxa uu dhowaan heegan buuxda uu geliyay dhammaan ciidamada dowlad goboleedkan oo uu sheegay in ay jiri karaan duulaan gudaha iyo dibadda ee goboladan maamulka loo dhisayo, isla markaana heegan buuxda ay galaan. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku milan dhismaha dowlad goboleedkan oo garab iyo gaashaan u ah dowladda. waxaa muddooyinkii ugu dambeysay deegaanadaas ay ku daadgureynaysay hub iyo ciidamo loogu talagalay inay xaqiijiyaan amniga guud ee deegaanada waqooyi bari ee Soomaaliya. wixii warar ah iyo macluumaad ku soo kordha arrintan, muuqaaladeena kuwan xiga ayaan idinkula wadaagi doonaa. soo dhawaada saaxiibayaal, nabadgelyo.